ayadoo maalmihii ugu dambeeyay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud ay socdaal ku marayeen iyo waliba hawlo shaqo xildhibaano ka socda baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa maanta degmada Balanbale oo kamid ah degmooyinka ay booqanayeen si weyn loogu soo dhaweeyay xildhibaanada bulshada noocyada kala gedisan oo reer Balanbale ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta xildhibaanadan waxaana goob fagaara ay kula hadleen isla markaasina hadafka iyo socdaalka imaanshahoodu waxa uu ku qotamo ay kaga warbixiyeen goobtii dadku isku soo baxay oo ugu horeynba halkaas uu ka hadlay xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf oo kamid ah xildhibaanada soo booqday gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya marka waxaan hadalka uga jeedaa anigu xildhibaanadii deegaanka ka soo jeeday baan nahay mareebna waa xaruntii ayada beesno noqon sida la sheegay degmooyinka waa soo noqonaynaa laakiin waa soo noqonaynaa waqtiga sheegi doonaa laakiin waxaad niyadda u qabuusataan maanta in dawladda adinka iska dawladda marti ka tihiin maaha dawlad la idinka tirsumayo maaha dawladda intaas ka bacdi waxaa maanta idin soo booqday xildhibaanadii qaranka Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo heer qaran ah kana soo jeeda gobolka Galgaduud waxaa sharaf weyn idin ah intaas oo xildhibaan inay maanta isu soo raacday inay idin soo booqdaan oo idin yimaadaan oo ogaadaan waxa aad ku sugan tihiin iyo noloshiina waqti badan ma haysano waxaanu ka soo degnay gobolka Galgaduud maalinkii darrata ahaa ilaa shalay waxaanu maraynay qaybo kala duwan oo gobolka ka tirsan waxaana naloogu soo dhaweynayay si aad noo soo dhaweyseen oo kale intii ay ku sugnaayeen xildhibaanadani ka socda baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya gobolka Galgaduud waxa ay socdaal ku soo mareen degmooyinka Gurceel, Dhuusamareeb, Caabudwaaq, Xeraale iyo degmada Balanbale oo ay maanta ku tageen safarkooda socodka ah oo ay maalmahan ku marayeen gobolada Galgaduud mana aha markii ugu horeysay xildhibaano ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay soo gaaraan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya iyagoo u yimid hawlo shaqo ay u soo dirsatay isla markaana u soo xilsaaratay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka qabtaan kana tabageliyaan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud hawlo ay ku ogtahay dawladdu ay u soo xilsaaratay waxaana degmo kasta oo xildhibaanadu ay tagaan ay kulamo la sameeyeen qaybaha bulshadu ay ka kooban tahay kuwaas oo mar walba kala hadlayay danahooda gaarka iyo hawlaha ay u yimaadeen gobolada dhexe dalka Soomaaliya iyagoo mar walba carabka ku adkeynayay in hawlaha ay u yimaadeen iminka aysan ka hadlaynin balse ay sugayaan wafdi iskugu jira wasiirro iyo xildhibaano oo dhawaan ku soo foole gobolada dhexe dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud Mahad Xasan Diini telefishinka caalamiga ah Universal Balanbale